waa ay jiraan dad qadada maalintii ah ka dhiiba balse maxamuud ma helo daryeel kale dhibaatooyinka uu ku hayo xanuunka dhimirka waxa uga sii daran noloshan qaxarka badan ee ay waayuhu badeen inta badan waxaa laga helaa nawaaxiga Trebiyaana ee Muqdisho waxa uuna degan yahay oo hoy u ah derbiyada tiro dhowr jeer ahna waxaa laga duubay muuqaalo lagu raadinayo macmiil badan oo baraha bulshada ah si lacag looga sameeyo maxamuud inta badan waxaad aragtaan iyadoo laga gudbinayo sheekooyin qosol iyo maad ah laakiin maanta waxaan idinla wadaagi doonaa nolosha daahsoon ee maxamuud ninkan walaalkayga ah arrimo oo markaas ani qosay ayaa wareysi inuu igala yeesho waxa uu iga weydiiyay ayuu damcay aniga runtaada waayo xaas waa soo yeeshay magaaladaas Kismaayo ayaa naa ku aroosay 1998 I have a one wife only hal xaasan lahaa I have a one children only hal ilaahay wiilna waa iga siiyay kadib masiibo ayaa igu dhacday masiibadaas oo ah macnaha naagtii uur ay qaaday meeshii ilmo laga sugayo dabeel ay naqatay dabeel war umulisadii markaa naan maxaa kugu dhacaan mana ii xaram mana ii furan marka anigoo macnaha oo naxdin aad u weyn macnaha arinkaasi ka qabo oo waa arinkii igu yaabka badnaa waana igu naxtin badneed ayaa ahayd aad iyo aad ayaan u cabsaday waa ka naxay arinkaas umulisadii markaan dhaanay macnaha anigoo waliba xataa suspected I wanted to test the life is our suspected macnaha anigoo waliba arinka noocaas suspected u qaaday oo macnaha shaki ah naagtaas umulisada ah cunuga aniga oo macnaha oo ii dhashay in ayada ay musqusha ku kaysatay ama guriga qeybihiisa qeyb ka mid ah inay ku kaysatay markaas waxay dhahday waxba ha iswaalan oo macnaha sariirta hoosteeda ha galan musqushina ha ku caran meel walba ha ku caran cunugaaga macnaha ma ku dhalanan naagtaaseeto waa umuli dabadeedana waxaan ka helay ay dhahday ugu dambeyntii dabeel yaabka badnaa waa arinkaaseeto macnaha arrintaasi waxay ahayd tii noloshaada soo martay oo kuugu yaabadnayd hadda Muqdisho aad joogtaa maxamuud bal noloshaada ka waran xagee degantaa wallaahi billaahi talaa aniga hadda ma leega waaye macnaha Trebiyaana agaheeda meelahaas aan ku baajaalaa habeenkiina meesha derbiyaalka meesha la iska saxdaabo dadka waalwaalan ee ku nool magaalada Muqdisho waxaa jira farqi u dhaxeeya dhanka noloshooda caafimaadkooda iyo la macaamilka bulshada ay ku dhex nool yihiin maxamuud waa nin kula sheekaysanaya oo mararka qaar uu shaki ka galayo inuu qabo xanuunka dhimirka iyo in kale jamalada adduunka jannado qurxoono jacaylku waa dhib badan yahay jannada way ka daran tahay caliyow ha jeesane haddii loo helo dawooyin maskaxdiisa dejinaya iyo daryeel wanaagsan malaha wuu caafimaadi lahaa sida ay qabaan dadka yaqaan magaalada Muqdisho waxaa jira xarumo lagula tacaalo xaaladda caafimaad ee dadkan sida xarunta dhimirka ee Dr. Xabeeb balse maxamuud iyo kuwa kale ee ku dayacan wadooyinka magaalada ma haystaan daryeel nololeed oo ay kaga baxaan caqabadaha noloshooda ku horgudban maxamuud Soo Faysane warbaahinta Shabeelle Muqdisho.